Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada dhaqanka. Beri waxa safar galay inan iyo aabihii. Waxa ay ka haysteen dameer weyne. Waxa uu ahaa mid inankiisa yar uga sheekeeya sheeko dhaqameed uu ka soo gaadhay awoowayaashii si aanu inanka yar u daalin aanuna caajisin. Waxay isku dhaafinayeen socodka sheeko iyo midadaalo. Waxa ay lugeeyeen masaafo dheer. Markii ay socdeen in badan oo ay lugeynayeen duurka dhexdiisa, waxa ka soo horbaxay laba nin. Inta ay la yaabeen oo ay ku qosleen ayay ku dhahdeen, bal eega ninka weyne doqonka ee inanka yar lugaysiinaya. Waxaad wadataa dameer, haddana waxaad lugaysiinaysaa inan yar oo ciyaala. Maxaad ka lugaysiinaysaa inanka yar saar dameerka, adiguna ku kaxee. Waxa ay qaateen fikirkii, sidii ayaa ay yeeleen. Waxa uu ninkii saaray inankii yaraa dameerkii, isaguna waxa uu ku kaxeeyey dameerkii. Markii ay socdeen xoogaa ay duurkii dhex lugeeyeen, waxa ka soo horbaxay nin. Waxa uu la yaabay inanka yar fuushan dameerka iyo ninka weyne ku wada. Waxa uu ku yidhi, inanka yaraa doqon ayaa tahay, aabbaha uu lugeynaya, aduna dameer baad ka saaran tahay. Carruurtu markay intaa laaleeg tahay maba daalaan, adigu ku kaxee dameerka oo saar. Haddana waxa ay qaateen fikirkii oo waxa fuulay ninkii weynaa dameerkii. Inankii yaraana sidii ayaa ugu kaxeeyey dameerkii oo u lugay. Xoogaa markii ay socdeen, waxa ka soo horbaxay oday waayeela. Waxa uu la yaabay inanka yara lugeynaya iyo ninka weyne fuushan dameerka. Waxa uu ku yidhi, dameerka waxa loogu talagalay in la rarto dushiisa lana fuulo, maydaan caadi ahayn. Maxaa u fuuli weydeen dameerka labadiinuba? Haddana waxay qaateen fikirkii. Labadooduba waxay fuuleen dameerkii oo ay lugeeyeen iyagoo saaran labadooduba dameerkii. Xoogaa markii ay socdeen oo ay labadooduba fuushan yihiin dameerkii, waxa ay ku soo baxeen laba nin oo meel fadhiya. Labadii nin aad ayay ula yaabeen oo ay ku qosleen. Waxay ku dhahdeen, maydaan caadi ahayn, ma dad waalwaalan baad tihiin? Maxaa dameerka yar masaakiinta sidaan ugu ciqaabaysaan? Labadiinuba waxa fuushan tihiin dameer yar, dad waaweynna waa tihiin. Dameerka yar sidan ka daayay oo qaada dameerka. Sidii ayay haddana yeeleen oo waxay qaateen fikirkii. Waxa ay ku xidheen dameerkii xadhig oo ay kaga xidheen cagaha oo ay qaadeen. Xoogaa markii ay la socdeen, waxay ku soo baxeen webi. Webiga waxa saarnaa biriish yar oo ka samaysan loox. Iyagoo sida dameerkii waxay isdhahaan ka tallaaba biriishkii. Markii ay marayeen biriishka bartankiisa, waxa la jabay looxii dul saarnaa webiga. Saddexdoodu waxay ku dhaceen webigii. Waxaynu ka fahmaynaa sheekada, haddii aad ku socoto fikir qof kale oo aanad ku soconin fikirkaaga, waad lumaysaa.